kusoo dhawaada Guuleed TV magacaygu waa Mukhtaar Baashi Maxamuud waxaana aanu ka hadli doonaa caawa wadahadalada Soomaaliland iyo Khaatimo ku dhex maray magaalada Addis Ababa. wadahadaladaas ma waxay ahaayeen gogashii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan Fidiye ma waxay ahaayeen wadahadalo Khaatimo iyo Soomaaliland toos u dhex maray ma waxay ahaayeen wadahadalo Soomaaliland gudaheeda lagaga hadlayo oo wixii tabasho ah ee laga sheegayo. caawa waxaa istuudiyaha magaalada Manchester inoogu marti ah Faarax Dalab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Guuleed TV wadaalaaba ka dhageystaan dacalada adduunka meel kasta aad joogtaan. istuudiyaha magaalada Manchester waxaa caawa marti noogu ah aqoonyaha kasoo jeeda gobolada SCC oo magaciisa la yiraahdo Faarax Maxamed Cabdilaahi Faarax Dalab oo ah aqoonyahan u dhun daloola siyaasadda Khaatimo iyo Somaliland. kusoo dhawo Faarax Guuleed TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوحي عليكم السلام. فارح سؤال شو رئيسنا كويدين waxa ay tahay sidee baad u aragtay wadahadaladii Soomaaliland iyo Khaatimo ee ka dhacay magaalada Addis Ababa adoo soo koobay. بسم الله الرحمن الرحيم. intaan su'aasha ka jawaabin horta waxaan halkan ducaa uga dirayaa dhamaan dadka abaaruhu hayaan runtii dhibaato ka jirta dhulkii iyo roob la'aan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay abaarta ka jabiyo waa ogtoo xilli jiilaal baa la galay laakiin raxmadda ilaahay lagama quusto marka horta iyagaan u ducaynaynaa marka hore haddaan soo noqdo su-aashaadii ahayd sida u aragtaa heshiiska Addis Ababa Somaliland iyo Khaatimo runtii waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu confusion badan abuuray oo dad badan oo maaragtay runtii dadka dhulka ka soo jeeda waa confuse garaysan yihiin waxaana dhacay split dadka qaarna waa taageersan yahay qaarna maaragtay waa ka biyadiideen marka confusion baa abuuran xaaladda lagu jiro marka saasaan u arkaa. ma Khaatimo iyo Somaliland shirka Addis Ababa ka dhacay ma sidii laba maamul oo laba dowladooda ay u heshiiyeen oo wada fadhiisteen mise waxay u wada fadhiisteen sidii Somaliland oo dowladda iyo Khaatimo oo ah dad reer Somaliland oo waxay tashanayaan iyo tabanayaan laga wada hadlo. بسم الله الرحمن الرحيم. horta arrintan Somaliland iyo ma waxay wada fadhiisteen laba dowladood laba maamul bay wada fadhiisteen waxa weeye dowladda Somaliland iyada dhulkii hadda haysta iyadana joogta waad ogtahay magaaladii capitalkii iyaga jooga dhulkii iyaga ka talanaya marka uma muuqata hadda wax isku culayso oo maaragtay ishor fadhiya inay meesha ka jiraan ma muuqato. marka waxaad leedahay sidii laba maamul umay wada fadhiisan umay wada hadlin. dee waa obviously waa inoo muuqataa. gudoomiyaha baarlamaanka Khaatimo wuxuu sheegay markuu buuhoodla ku noqday inay laba maamul oo laba dowladood wada fadhiisteen taamaad beenaynaysaa adigu. maya anigu dee horta beenan iyo rumayn maaha arrintu laakiin waxaanu ka hadlaynaa arrinta meesha taalla waxa weeye waaqiciga ah waxa on the groundka meesha yaalla waa muhiima marka Somaliland waxaynu muuqanaynay in maamul meesha ka jira inay tahay in maaragtay practically inay maaragtay ciidamadeedii iyo maaragtay dhulkii sidaan kuu sheegay magaalada capitalka ahayd oo kale cashuurtii bay ka ururinayaan iyagaa jooga iyagaa maamula marka dee maamul laba maamul oo maaragtay meesha ka muuqanayay dee lama muuqdaan marka taasaa caddaynaysa maaragtay inagoon odhan ma garanaysaa gudoomiyaha baarlamaanka saasuu yidhi inagoon odhan taasaynu ka shidaa qaadan karnaa inoo muuqata. waa maxay sababta mar kasta oo Khaatimo ama gobolada SCC ama jihadii SCC ay istiraahdo heshiiya waa maxay sababta ay mar walba khilaaf Khaatimo gudaheeda ugu dhaca markii Khaatimo la sameeyay SCC baa diiday oo xagla toosiye wasiirka caafimaadka Somaliland ay jihadiisi way diideen imikana Khaatimo laba kala jabtay saad u aragtay jihada kale iyo garaadada. waxa weeye horta marka hore arrinta ku saabsan split ka dhacay iyo confrontation hadda dadkan gudahooda
gobollada SSC waxay u muuqataa in yani powero isimadu waxay og tahay inay institution traditional inay yihiin oo meel taagan yihiin oo iyaga laftoodu dee way ka qayb qaadanayaan arrimihi dad badanna waa ka cadhaysan yihiin laakiin meeshii waxaa muuqatay in dad cadhaysan oo revolution dadweyne intuu kacay isimadii cidla mariyay ma jiro isimadii weli meeshay joogaan waa shirayaan waa isu imanayaan ma garad waladan kala leeyahay jabhaddu iyana waa meeshay ordayaan marka waa lama yaraysan karo waxa meesha jira waa wax wada magaranaysaa complicated garaadadii khaatimo ee Soomaaliland taageersanay ku Puntland taageersanaaba waxay shir ku qabteen meesha la yiraahdo Higlada waxaana sheegeen inaanay taageersaneen heshiiska khaatimo iyo Soomaaliland waxaana ku dhawaaqay shir kale wadada waay ugu soo warshadeen shirka Soomaaliland iyo khaatimo maadaama hore ay ugu Soomaaliland taageersanayeen hawiye horta taas waxay ku imanaysaa sida aad sheegayso Higlada arintay ka dhawaaqeen isimadu waxa weeye waa arrin isimadu ay hadda waxa jira dhoolatus isimada iyo khaatumada marka institution khaato isimadu wuu jira nimanka odayaasha khaatumaduna iyaga soo arka maaragtay marka de waxa muuqata in maaragtay isimadu ay muujinayaan inay iyagu yihiin maaragtay cidda kale legitimate kale marka sababta isugu imanayaan hadda wada ogtahay isimada markay Higlada isugu yimaadeen Puntland ba ay siyaasiyiin ka soo ku xiran tahay qaybna Somaliland laakiin waxay ka midaysan yihiin inay isma ahaan isu muujiyaan oo tusaan iyagu maaragtay inay yihiin maaragtay inay khaatimo ka awood badan yihiin inay awood badan yihiin oo khaatumadii bay maaragtay u dhowr tusanayaan khaatumadina de waa tabuuqooda maaragtay iyaduna fariimaha ka soo diraysa si fiican marka waa confrontation weli socdo oo maaragtay u baahan in dad dhexdhexaadiye iyo bay u baahan yihiin iyo in maaragtay la dejiyo maaragtay atmosfeerkan hadda la galay khaatumadiina ay halkaa fariimo ka soo dirayso isimadiina ay rabaan inay maaragtay muujiyaan dad bay u baahan yihiin in arrintaa maaragtay la sidee bay u heshiin karayaan maadaama ay saddex group oo keenay isimada iyo gruuba khaatimo group iyo jabhad gruuba sidee baa loolaha Soomaaliland oo wada hadli kareen waxa aniga hadda anigu personally waan qabaa inaan horta halkan laftigeeda fariintii bulshada ka diro waa chance laftigeeda media inaan mariyo qolada horta buuqoodle khaatumadu fariimahan ay soo dirayaan offensive-ka inay joojiyaan horta maadaama iyagu ay soo arkaan maaragtay inay yihiin niman siyaasiyiin oo maaragtay dadka wax ugu maqan inay horta joojiyaan qoladan isimaduna inay maaragtay marka waxaan oran lahaa dad badan oo maaragtay notable ah oo dad badan oo wax laga akhrisan karaa in arrintaas u halgaamaan oo horta dejiyaan maadaama kala maarmayno oo experience-ga siyaasadda waxaynu ognahay inaanay isimada la fikirin qoladan khaatumaad iyana waxooday wataan marka bal inay isdejiyaan maaragtay labaduba in dad u kala wadeeyo oo kala dejiya baa loo baahan yahay maaragtay xaaladda hadda lagu jiro shirka ay ku dhawaaqeen ismadu haddii la helayo ma dhacayaabadu malaynaysa bisi khaatimo way suurtaagaysa wallahi kulley de isimadu way leeyihiin influence-kooda iyo dad ku xidhan iyo arrimo badan bay leeyihiin isimadu oo niman ma garanaysaa berigii hore ee saad la socoto khaatumada la sameeyey khaatumada iyo isimadu mar baa jira ay isku dhaceen isimada qaar ka mid hadda isinkan sheegayey warqadda akhriyay shirka mashqare garaad mashqare raggii khaatumada buldigaha u ahaa warqaddu akhriyayo yani maadaama isaga loo dhiibay waraalkii waxaa muuqanaysa in la tusayo yani khaatumadii isimadii khaatumadii inay u kala dhamaatay inkastoo laba isinoo waaweyn oo dee traditionally maaragtay isinoo waaweyn oo xagga maaragtay abtirsinyaha ay maqan yihiin misena weli maaragtay waxaa muuqatay in maaragtay confrontationku inuu culus yahay Somaliland iyo khaatimo heshiiska ay sabab ku heshiiyeen 11 qodob waxa qodobkiisa lixaad wuxuu dhigayaa in ciidamada Somaliland markii uu dhulku nabad noqdo ama aan loo baahnayn inay ka baxaan ma baran Somaliland ciidamadeeda inay ka saarayso dhulka Somaliland maya anigu horta sidoo ciidamada ama kuwa Somaliland ha noqdeen ama kuwa hadda Amisom jooga xamar ha noqdo meel walba ciidan jooga horta ciidan sidoo ku baxa waa hal si kaliya bay u badan tahay inta badan horta ciidanku sidiisaba siyaasadiisa laga adkaaba ayuunba ku baxaa marka military ahaan iyo siyaasiyiinba loo jabiyo dee ciidanku wuu baxaado adduunka experience waxaan onahay meelo badan oo ciidan la geeyey oo ciidanku joogo oo ciidan ka baxay baynu ognahay marka ciidan iska baxa oo iska tagaa ma dhaco taariikhda kumayna baran history marka aad waxaad rumaysantahay ciidamada Somaliland mar walba joogeen dhulkoodii dee ciidanka Somaliland waaba jooga hadda waaba inoo muuqataa inuu maaragtay on the going yahay meesha joogo marka
khaatumo xamar bay tagtay 4 sannadood xamar bay ka daba wareegisay way kasoo quusteen puntland way dafarto puntland waxay khaatumo ma jirto wadahadalada somaliland ma danbay moodeen mise waa gogashii uu madaxweyne silaanya dhigay wallaahi horta arrinta quusashada xamar dee horta hadda arrin mabda' baad ka hadasho waa midnimadii baa marka arrinta midnimadu kama ay quusan dadkan xaggii midnimada iyo midnimadii soomaaliya kama ay quusan laakiin kolley maamulka jooga maamul goboleed bay ka doonayeen xamar dowladda federaalku way socon weyeen maadaama ay maamul goboleedkaas socon waayeen ma somaliland ma gogashii nabadii kula heshiiyeen madaxweyne silaanya dhigay mise maadaama albaabkaa ku xamar ka soo xidhmay waxay isirahdeen dadkiina dhinac ka raaca maamul goboleedka horta waxay hortaagay xasan sheekh si fiican wuxuuna isu hortaagay waxay ahayd wuxuu kala doortay somaliland iyo khaatumo wuxuuna u arkay somaliland inay maaragtay xaggoona kuraas badan bay somaliland ku dhacday xamar marka wuxuu u arkay somaliland inuu maaragtay soo dhaweysto siduu u fakerayay siyaasiyan marka taasaa keenaysay had iyo goor maadaama khaatumada aanay dhulkii hayn uu ignoor gareynaya maaragtay inuu xiriir la furo uma arkin maaragtay khaatumo in badan waxay u dagaalamaysay midnimada soomaaliya bridgeka lagu fuulaa buu ahaa haddii imika somaliland la heshiiso khaatumo ma idaa midnimadii ka tanaasushay mise somaliland baa goosashadii ka tanaasushay maya ota midnimadu waa reer waqooyiga oo dhan markaan hadda kaaga warramo midnimada ciidana kama tanaasuleyso xitaa qayb ka mid a hadda ciraana hadduu waayo doorashada hadduu waayo dad badan oo waqooyiga jooga midnimadaasi weli kusii xidhan yihiin waa meesha waa la isku sugayaa midnimadu maaha wax iska soo afjarna maaha oo maaragtay iska dhamaanaya marka taa midnimadu ma sahlan iyadu waa arrin kuma xidhna cid baa cid la heshiisay iyo cid baa magaranaysaa way iska soconaysaa waa arrin iska soconaysa infinitive way iska soconaysaa marka waxaa khaatumo kamay tanaasulin xitaa haddii somaliland la heshiiso may horta tanaasul iyo midnimaan ba isgelenba wax lagaba tanaasuli karo wixii wax lagaba tanaasuli karo maba aha marka waa wax maaragtay dee dadka oo dhan markaad eegto soomaaliyada oo dhan si kalsa maaragtay siyaasada kale ha u kala jiran laakiin midnimada waa meel ay ku wada wareegayaan aqoon-yahan kasoo jeedaata gobolada s c in badanna ka og wax s c iyo somaliland in badanna tegay waddanka siyaasadan la socda waa maxay sababta s s e waxay u taagtay sool iyo sanaag iyo cayn waa maxay sababta aada shacabka reer sool iyo sanaag iyo cayn aada u tiraahdaan idinkaa deegaanka kale maadaama sanaagna laydina wada dego caynabana ayan deginba shuqul lagu lahayn waayba dadka ugu odhan weydeen buuhood iyo sool waxa weeye horta taasi intii burburku dhacay soomaalidu waad iska ogtahayo iska qabaa'ilo nin walba waxbuu iska kalan garayaa marka dadkan hadda s c daad sheegayso dhul badan ay leeyihiin baa jira iyo dhul sida aad sheegayso la dego oo kale oo dad kale ay degaan laakiin dadkan somaliland hadda dhul ba iska kalan garaysaa nin walba dhul bu iska kalan garaya soomaalidu ma ogtahay wax iska dhicin baa la yihahdaa waa arrin iska maaragtay intii burburkeenu ku jirnay gobollo cusub baa iska samaysmay waxyaala cusub baa iska samaysmay marka taasi waa iska arrin maaragtay dhinac walba jirtaa marka maxaa le magacaan ugu socday ma soo noqonayo dee waa siyaasaddu ka mid yahay magacyo badan oo hirgeli baa jira marka shirka dambe ay somaliland iyo khaatumo ay haw ka dhacaya wallahi imaaraadka details uma hayo laakiin waa maxay fariinta aada u marinaysaa shacabka khaatumo ee ku dhegeysanaya dacalada adduunka imika fariinta aada umarsa nabadda waa qaali waa maxay fariinta aada u marinaysaa guuliya t v waxaan u marinayaa guuliya t v horta marka hore waxaan aada iyo aada aan usoo jeedinayaa in arrintan hadda taaganaya isimada iyo ragga khaatumo horta in la dhexdhexaadiyo marka hore oo aada maaragtay reconciliation la furo inaan la isku degdegin oo had iyo goor maaragtay aan la isku fogaan oo magaranaysaa la dejiyo xaaladda oo nimankaa isimada higlada ku shireeyey waa ognahay dad badan baa ka cadhaysan laakiin cadhadaasi waxaan experience u leenahay inay maaragtay aanay wax badan qaadayn cadhadu iyo emotionalku in arrinta la isdejiyo oo dhexdhexaadan laga furo oo channel wada hadal la furo anana waa aaminsanahay qoladaas buuhood la joogtay khaatumaduna niman odayaal weeye oo iyana ixtiraamkooda leeyahay in maaragtay ay dejiyaan xaaladda oo cadhada ay maaragtay miidiyaha la isu marinayo labada dhinac in la dejiyo xaaladdan aaminsanayan oo dhexdhexaadan laga dhex bilaabo shirka higladu hadduu furmo oo ay gogasha ay kaga dhabeeyaan ma u marinaysa wadahadala somaliland iyo khaatumo inay burburayaan
wallahi de waa hadallada horta meel walba ha joogeen weligood waa hadalku weligood iska jiray inta la nool yahay waa iska maaragtay wax banaadmi iskaga abuuran waa hadal sidiisaba waad ogtahay oo adduunkan aynu ku noolnahay siyaasaddu dowlado isdilayo military xabas la dhacaya baa backdoorka ka wada hadlayay waa iska wax waa hadallo lama oran karo marna waa joogsanayaan marka waynu eegi doonaa kale wixii maaragtay kaas wuxuu ahaa aqoon-yahan faarax maxamed cabdilaahi oo kusoo jeeda gobolada SC oo aan waraysi kula yeelanay xarunta dhexe ee Guley TV magaalada Manchester kala soco adduunka dacaladeeda meel kasta aad joogto Guley TV. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.